QuickBooks Training. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن نقول صوتان وسيت هي برودكشن 1 فضل سبسكرايب ودقة من نقول مع مش كنت حنا كبرات برشة علم كمبيوتر كنوعية كل دول كورسدني هايد waxa loo yaqaano QuickBooks Enterprise Training waxaan ku guda jirnay casharkeeni 26 casharkeeni 26 waxaan ku soo qaadan doonaa sida markaasi loo sameeyo ama loo doorto oo active loogu dhigto waxa loo yaqaan sida u eegi lahayd daily cash kaaga maalin kasta cash tii hore iyo tan maalinta diisay totalka daily cash ka ku soo baxay aynu eegno waxa tagaysa meesha marka u horeysa meesha ku qoran tahay list charts of account ayaa clicksin chart of accounts marka clicksid waxa door report waxaad ka sii door meesha ku qoran tahay quick report marka clickisiso waxa ku soo bixi doonta daaqad tan oo ah sheegaysa deeligaagi u dambeeyay markaasi aad iibisay markaasi ahaa qarash cash ku soo gashay iyo qarashaadkii ka baxay iyo sababaha iyo qaababka ay kaaga baxeen hadaynu eegno waxa cash on hand dollar kaagu waa $21 ayaad haysataa oo sales dhacaya dahabshiilna waxa ku yaalay $95,500 markaasi dahabshiil ayaynu ka bixinay lacagtaasi maalintaasi dahabshiil waxaan ka bixinay Axmed Xasan Cawaale oo payroll mushahar la siiyay $100 iyo waliba check la jaray oo ah markaasi lacag la bixiyay oo ah bitcash oo la siiyay markaasi shahlaha ama makhaayada shaaha oo 1.5 ah sidoo kale waxa ka baxday maalintaasi shidaal gaari oo markaas ku baxay juwanka 002 fuel waxa loo diray fuel car and spare parts ay markaas ku calaamadnay waa $10 markaasi qaabkaas waa qaabka qarashka baxay iyo markaasi wixii ku soo galay aad uga jari karto adigoo isticmaalaya wax loo yaqaano markaasi isticmaalaya dheeligaaga markaasi maalintaasi haddaba dheeligan goormu dhacay haddaan clicksino dheeligan wuxuu u dambeysay u dhacay 22 bishii koowaad 2000 iyo markaasi 21 ayuu dheeligaas u dhacay haddaynu isnaahno haddaba hadhow tole mar walba waxaad ka heshaan meel fudud imkaas meelo fara badan baan marnay haddaba si fudud aan ugu helno waxaan hoos keenaa report ka tagaysa hadhow tole waxa inta ka dambeeya memorize report sayarsa bartan ayuu ku soo galiyaa haddaba sidee maxaynu sameynaa waxa sameynaysaa halkan ku qoran tahay memorize ba clicksin dabatana waxaad u bixin markaasi magacaad u baxsanayso halkan hadii kale kana yeedaysan markaan waxa uu bixinayaa daily cash 2021 dabatana wuxuu qoranayaa meel bay hoos keenaysaa waxaanayaa meel bay hoos keenaya markaasi okay ideh okay waxaan maqashay saqadaasi waxay sameynaysaa haddana imka ka noqdo oo bartana ka noqdo wadooyinkana soo marno dhan oo ah report oo la memorize markii waxa arkaysa halkan inay ku soo baxday daily cash dadka clickisana waxa ku soo bixi doonta maalintaasi waxaad iibisay mar walba saasi active kuugu haan doonta oo wixii aad iibisay ay halka kuugu imanayaan tusaale haddaynu markaan nahno customer aan tagno dabeetana aan ka iibino markaasi shay cash uu nagala iibsanayo oo nahno waxa hoos gelinaa daily saleska dabeetana halkan batagaya waxaan dooranayaa shayga waxaan doortayba saliidaas sidoo kale waxaan doortay caanahaas inta marka doortay waxa noqotay lacag dhan markaasi $12 discount marka sameeyay saan ugu darno oo casharadu u soo koobnaadaan faa'iidana u lahaadaan discount qofku marka uu sameeyay bartana adiga jooga ayaa taabanaysa diida discount ayaa ka hoose dooranaysa discount marka dooranaysa wuxuu 12 war toonba haysta 5 siya halkaad ka tuuraysa halka waxaad ku qoraysaa halkan ku beegan rate-ka markaasi halkan ayay ka go'aysaa automatically oo minus noqonaysa bartan hoosena $10 ay soo baxaysa sida aragtid dabeetana waxaan save gareynayaa oo save oranayaa anigoo tagaya bartaasi ku qoran tahay and deposit fund waxaan ka dooranayaa cash on $100 save and close baan oranaya save and close markay dhahdo
waxaan eegayaa dheeriga maanta bal waxaan iibinay saan u eegayaa barta maan furayaa waxaan tagayaa daatana 29 bisha 29 bisha marka tago oo yiraahdo refresh halkan waxaad arkaysaa in totalka lacagtii soo wareegtay tahay 79409.5 waxaan aan iibiyay maantana ay tahay lacag dhan markaasi $10 oo kaliya taa markaasi cash on hand dollarka hore waxa ugu jiray 21 kii waxa ku soo biiray 10kan 31 waxay ku jiraan nimanka total cash on hand dollarka dahabshiilna waxa yeelashay 1385 saas ayay markaasi ku noqotay lacagtaasi 79000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.